بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiinta ah what is a simple interest rate. Simple interest rate ama dulsaarka fudud waxaan ku qeexi karnaa dulsaar lagu dhufanayo lacagta aad bangiga dhigatay ama lacagta aad daynsatay. Si kale haddaan u dhigno, waxaad dheeraad ama dulsaar ku helaysaa oo keli ah lacagta aad bangiga dhigatay ama lagaaga qaadayaa lacagta aad daynsatay. haddaba si aan u fahanno qeexidaas, aan aragno qaacidada lagu saleeyay ee tusaalahaba. aan ku hormarno qaacidada ama formulada. Simple interest rate waxaa lagu heli karaa P lagu dhuftay I lagu dhuftay N. haddana aan isla fahanno xarfaha waxa ay u taagan yihiin. P waxay u taagantahay principal oo ah lacagta aad daynsatay ama aad bangiga dhiganaysid, halka I ay u taagan tahay dulsaar ama boqolkiiba intee ayaa lacagtan deynta ah lagaaga kireeyey, halka xarafka u dambeeya uu yahay N una taagan muddada deynta. markana aan isla aragno tusaalaha oon dhahno macmiil ayaa bangi ka daynsaday lacag dhan 10,000, waxaana looga kireeyey lacagta dulsaar dhan boqolkiiba 5, waxaana laga rabaa inuu macmiilka deynta ku bixiyo 2 sano gudahood. haddaba waa imisa lacagta dulsaarka laga rabo iyo lacagta guud uu macmiilku bixin doono iyadoo la adeegsanayo simple interest rate. haddana aan isla aragno xogta aan ka soo dhex saari karno tusaalahan. P waa principal, waana lacagta 10,000 ah uu macmiilku u qaatay deyn ahaanta. N oo ah muddada deynta waa 2 sano. I oo ah interest rate waa boqolkiiba inta looga kireeyay macmiilka deynta waana 5%. intaas kor ku xusan haddaan isla fahanay, aan aragno kow sidii aan u xisaabin lahayn lacagta dulsaarka inta ay noqonayso. 2 tirada guud ee deynta laga rabo inuu macmiilku bixiyo imise ayay noqonaysaa. 10,000 haddaan ku dhufanno boqolkiiba 5 oo ah dulsaarka, waxaa inoo soo baxaysa 500 oo ah lacagta dulsaarka laga rabo inuu macmiilku bixiyo sanadkiiba. haddaan ku sii dhufanno 2 oo u taagan muddada deynta, waxa ay noqonaysaa $1,000. taa oo haddaan si kale u dhigna ah 500 waxa uu macmiilku bixinaya sanadka koowaad, halka sanadka labaadna uu bixinayo isla $500 oo kale. haddaan 500 ku darno 500 waxa ay noqonaysaa $1,000. waana jawaabta su-aasha koowaad ee ahayd waa imisa dulsaarka laga rabo inuu macmiilku bixiyo, waana $1,000. haddana aan isla aragno lacagta guud ee laga rabo inuu macmiilku bixiyo, midaas oo ahayd su-aasha labaad. haddaan xasuusanno lacagtii orijinaalka ahayd ama ugu horreysuu macmiilku soo daynsaday waxa ay ahayd 10,000. haddaan u geyno $1,000 oo aan ku soo dhiranay dulsaar ahaan, waxa ay noqonaysaa 11,000, waayo 10,000 haddii aan 1,000 ku darno waa 11,000. insha allahu qeexidda soo socota ayaan kaga hadli doonaa compound interest rate oo aan ku arki doono isla tusaalahan iyo qaabka uu isku bedeli doono. sidoo kale xog dheeraada oo ku saabsan ereybixinada dulsaarka interest rate, fixed interest rate, variable interest rate, fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin, waa inoo markale haddii rabbi idmo.